Herman Majid, oo markii dambe u beddelay magaciisa H. Holmes, wuxuu dhashay isagoo leh maskax aan aqoon u lahayn naxariista iyo dareenka bini'aadamka. Markii uu soo gaadhay magaalada weyn ee Chicago sanadkii 1886, wuxuu ahaa nin aad u xarago badan, xidhan dhar qaali ah, oo leh hadal kasta oo qofka lagu soo jiito oo lagu qaldo. Wuxuu shaqo ka helay farmasi ku yaalay xaafadda Englewood, kaas oo ay lahayd haweenay waayeel ah oo ninkeedii dhintay oo la odhan jiray Marwo Holton. Holmes wuxuu isticmaalay xariifnimadiisa si uu u hantiyo kalsoonida haweenaydaas. Muddo yar kadib, Marwo Holton ayaa si lama filaan ah loo waayay. Holmesna wuxuu dadka deriska ah u sheegay inay u safartay gobol kale oo fog si ay u soo nasato, laakiin runtu waxay ahayd inuu isagu gacanta u geliyey masiirkeeda madow si uu hantideeda ula wareego. Markuu hantidii farmasiga iyo dhulkii ku dhowaa gacanta ku dhigay, wuxuu bilaabay dhismaha dhisme weyn oo 3 dabaq ah oo ku yaala geeska wadada. Dhismuhu wuxuu u ekaa mid aad u qurux badan oo dadka soo jiita, balse dhexdiisa waxaa ku qarsoonaa nidaam dhimasho oo aan dunidu hore u arag. Holmes wuxuu beddelay injineerada iyo shaqaalaha dhismaha ku dhowaad 20 jeer intii dhismuhu socday, isagoo ujeeddadiisu ahayd inuusan jirin qof kale oo fahmi kara qaabka dhismaha gudihiisa iyo jidmarada qarsoon ee uu samaysanayo si uusan sirta u fashilin. Dhismahan oo markii dambe dadku u bixiyeen qalcaddii dhimashada, waxay u dhisnayd sidii dhagarmaro oo kale oo aan laga baxsan karin mar haddii gudaha loo galo. Dabaqa labaad wuxuu lahaa in ka badan 100 qol oo si yaab leh loo qaabeeyey. Qaar ka mid ah qolalka waxay lahaayeen albaabo aan dibadda ka xidhnaan karin oo kaliya, halka qaar kalena ay ku dhammaanayeen gidaar adag oo aan wax baxsad ah lahayn oo dadka lagu dhex godoomiyo. Waxaa jiray jaranjarooyin badan oo markaad kor u kacdo kugu celinaya isla meeshii aad ka timid, iyo qaar kale oo ku geynaya godad dhuuban oo aad ku dhex nafbaxayso. Holmes wuxuu xafiiskiisa gaarka ah ku rakibay nidaam tuumbooyin gaas ah oo ku xidhan qolalka martida ee uu hoteelka u beddelay, isagoo awood u lahaa inuu badhan kaliya riixo si uu qof kasta oo qolkaas ku jira ugu neef qabatiyo gaas sun ah isagoo meel fog fadhiya. Derbiyada qolalku waxay ahaayeen kuwo aad u dhumuc weyn oo laga buuxiyey qalab dhawaaqa xanniba, si qofka gudaha ku jira marka la jirdilayo ama uu dhimanayo qayladiisa iyo oohintiisa aan looga maqli karin qolka ku dhow ama wadada bannaanka. Dhismuhu ma ahayn guri dadku ku naxariistaan, balse wuxuu ahaa mashiin weyn oo bini'aadamka hilib iyo lafo u beddela oo loogu talagalay dhiig iyo dhimasho. Sanadkii 1893, waxaa magaalada Chicago ka furmay bandhigga weyn ee adduunka, kaas oo ay yimaadeen malaayiin qof oo ka kala yimid daafaha dunida oo dhan si ay u arkaan horumarka sayniska. Holmes wuxuu fursaddan u arkay fursad dahab ah oo uu ku ugaadhsan karo dhibbanayaal cusub oo aan magaalada laga aqoon. Wuxuu si gaar ah u beegsan jiray gabdhaha dhalinyarada ah ee ka soo cararay miyiga si ay magaalada uga raadsadaan madax bannaani iyo shaqooyin cusub. Wuxuu u soo bandhigi jiray shaqooyin xoghaye, xisaabiye, ama meel ay seexdaan oo aad u raqiis ah haddii ay lacagtooda iyo hantidooda yar isaga u saxeexaan. Markii ay gabdhahaas miskiiniinta ah gudaha u galaan qalcadda, waxay ku dhex jiri jireen xaalad cabsi ah oo aysan marnaba qiyaasi karin dhibaatada ku soo fool leh. Holmes wuxuu lahaa dhoola caddayn shaydaan, isagoo gabdhahaas u sheegi jiray inuu jecel yahay oo uu guursan doono ka hor inta uusan ku xidhin qolalka mugdiga ah ee gaaska sumaysan leh. Dadka degganaa xaafadda ma ayan dareemin waxa ka socday dhismahaas, waayo Holmes wuxuu ahaa nin bulshada dhexdeeda laga tixgeliyo. Qof kasta oo hoteelkaas soo galay wuxuu ahaa magac iyo weji dhowaan dunida laga tirtiri doono, iyadoo aan cidna loo sheegin. Naxdinta ka dhex dhici jirtay qolalka gaarka ah ee Holmes ma lahayn wax xuduud ah oo la garanayo. Wuxuu dhisay qolal bir ka samaysan oo loogu talagalay in dadka lagu gubo iyagoo nool, iyo qolal kale oo loogu talagalay in dadka lagu dilo gaajo iyo haraad muddo toddobaadyo ah ilaa ay lafuhu ka soo muuqdaan. Holmes wuxuu lahaa daloolo yaryar oo uu gidaarada u sameeyey si uu u daawado naxdinta, oohinta, iyo quusta ka muuqata wejiyada dhibbanayaasha marka ay dareemaan in hawadii ka dhammaanayso oo dhimashadii soo dhowaatay. Mararka qaarkood wuxuu isticmaali jiray mashiinno jidhka kala bixiya ilaa muruqyadu u kala go'aan, isagoo raba inuu tijaabiyo inta ay lafaha bini'aadamku u adkaysan karaan xanuunka ka hor intaysan u kala jabin sidii qoryo qallalan oo kale. Wax naxariis ah kuma jirin wadnihiisa madow. Wuxuu ahaa dilaa u arka dhibaatada iyo xanuunka bini'aadamka sidii cilmi-baadhis uu ku raaxaysanayo. Habeen kasta, qaylo iyo hiifaan aan dibadda loo maqal ayaa ka dhex guuxaysay derbiyada qalcadda, halkaas oo Holmes uu ku dhex socon jiray mugdiga isagoo raadinaya qofka xiga ee uu noloshiisa ku dambayn lahaa. Godka hoose ee dhismaha oo aad u weynaa wuxuu ahaa halka ay ku dhammaan jireen dhammaan raadadka dambiyada iyo dhiigga ee Holmes.
wuxuu dhisay wiish qarsoon oo uu meydadka kaga soo dejiyo dabaqyada sare ilaa qaybta hoose ee godka si aan cidna u arkin. Halkaas waxaa yaalay 2 foorno oo aad u waaweyn oo markii la shido ay gubayeen hilibka iyo lafaha bini'aadamka ilaa ay dambas madow ka noqdaan. Sidoo kale wuxuu lahaa foostooyin waaweyn oo ay ka buuxaan kiimikooyin aad u xoog badan iyo aashito awood u leh inay jirka bini'aadamka ku dhalaaliyaan saacado gudahood. Laakiin Holmes hantida kaliya kama heli jirin caymiska dadka uu dilo, wuxuu sidoo kale ka ganacsan jiray lafaha dadkaas. Wuxuu maqaarka iyo hilibka ka fujin jiray meydadka isagoo isticmaalaya qalabka dhakhaatiirta, kadibna wuxuu si fiican u nadiifin jiray qalfoofka si uu ugu iibiyo dugsiyada caafimaadka iyo jaamacadaha gobolka, isagoo ku andacoonaya inuu yahay dhakhtar helay meydad dabiici ah oo aan cidna sheegan. Ganacsigan dhiigga ku dhisnaa wuxuu ka dhigay Holmes nin aad u qani ah, oo hantidu ay hoteelkiisa uga soo gasho jidhka bini'aadamka ee uu burburiyo. Dhibbanayaasha Holmes ma ahayn dad qariib ah oo kaliya, balse wuxuu sidoo kale dabin u dhigay saaxiibkiisii ugu dhowaa ee Benjamin Bitzel iyo carruurtiisii oo u haystay inuu yahay badbaadiye. Holmes wuxuu Benjamin ka dhaadhiciyey inuu iska dhigo sidii qof dhintay si ay u helaan $10,000 oo lacagta caymiska ah, balse markii fursaddu u dhalatay, Holmes wuxuu si dhab ah u dilay Benjamin isagoo u adeegsaday kiimiko wuxuuna gubay wejigiisii si aan boolisku u aqoonsan karin. Markii uu dhammaystay aabbihii, wuxuu u weecday carruurtii Benjamin oo kala ahaa Alice, Nellie iyo Howard yar. Holmes wuxuu carruurtii ka kaxaystay hooyadood oo dhibbanayd isagoo leh, aabbihiin ayaa gobol kale idiin yeedhaya oo nolol cusub ayaa idiin bilaabmaysa, balse safarkaas wuxuu ahaa kii dhimashada ee ugu dambeeyey. Howard oo ahaa wiil yar ayuu ku dhex gubay foorno ku taalay magaalada Indianapolis, halka labadii gabdhood ee Alice iyo Nellie uu ku dhex neef qabatiyey sanduuq weyn isagoo ka daawanayay dalool yar ilaa ay ka naf baxaan, kadibna wuxuu ku aasay guri hoostiis oo ku yaalay magaalada Toronto ee dalka Kanada. Frank Geyer oo ahaa dambibaare caan ah oo aad u hawlkar ahaa ayaa bilaabay in uu baadigoobo carruurtii Benjamin Bitzel kadib markii ay boolisku dareemeen shaki weyn oo ku saabsan lacagaha caymiska ee Holmes uu codsaday. Frank Geyer wuxuu safray kumanaan mayl, isagoo raacaya raadkii Holmes ee u dhexeeyey Maraykanka iyo Kanada oo dhan. Baadhitaankiisu wuxuu ahaa mid aad u adag oo xanuun badan, balse sannadkii 1895 wuxuu magaalada Toronto ka helay guri uu Holmes muddo gaaban kiraystay. Markii uu dambibaaruhu qoday sagxadda guriga qaybtiisa hoose, wuxuu ka helay lafaha yaryar ee Alice iyo Nellie oo isku duuban oo dhiigu ku engegay. Muddo yar kadib, magaalada Indianapolis wuxuu foorno guri ku dhex jirtay ka helay ilkaha iyo lafaha yaryar ee gubtay ee Howard yar. Muuqaalkan naxdinta leh ayaa caalamka oo dhan ka naxsaday, waxaana la ogaaday in Holmes uusan ahayn tuug hanti raadis ah kaliya, balse uu yahay xayawaan bini'aadam u eg oo dhiiga carruurta iyo dadka ku raaxaysta oo aan lahayn wax damiir ah. Markii booliska Chicago ay xoog ku galeen qalcaddii weynayd ee Holmes kadib markii lagu qabtay dembiga Bitzel, waxay la kulmeen muuqaal ka naxdin iyo foolxumo badan, wax kasta oo ay maskaxda bini'aadamku filan karto. Hawada dhismaha gudihiisa waxay lahayd ur dhimasho iyo hilib qurmay oo aan laga baxsan karin. Markii ay bilaabeen inay dumiyaan darbiyada qolalka, waxay ka heleen godad qarsoon oo ay ka buuxaan timo dhedig oo aad u badan oo la isku xidhay iyo dhar dhiig leh oo boqolaal qof ka yimid. Godka hoose ee qabowga badnaa waxaa yaalay miisaska qaliinka oo weli dhiig qoyan leh, iyo boqolaal gogo oo lafo bini'aadam ah oo ku dhex jira foostooyinka kiimikada ee hilibka dhalaaliya. Baadhayaashu waxay heleen dabinno iyo dhuumaha gaaska ee Holmes uu ku kantarooli jiray nolosha iyo geerida dadka isagoo kursigiisa fadhiya. Qalcaddii quruxda badnayd ee dhisnayd waxay noqotay meel nacdal ku taal oo dunidu ay ka naxdo, dadka xaafadda degaankuna waxay bilaabeen inay sheegaan inay habeenkii maqlaan codad qaylo ah oo ka imaanaya dhismaha cidladu ku dhacday. Intii uu socday dacwad qaadista Holmes ee maxkamadda, wuxuu u muuqday nin aan wax dareen ah ama qoomamo ah ka qabin dembiyada argagaxa leh ee uu galay. Wuxuu saxaafadda iyo dadweynaha u sheegay hadal ilaa maanta taariikhda madow ku jira: waxa aan ku dhashay shaydaan gudahayga ku jira, uma diidi karin inaan dadka dilo sida uu gabayaagu uusan u diidi karin inuu gabyo marka uu dareenka helay. Holmes wuxuu markii hore qirtay inuu dilay 27 qof oo kaliya, laakiin baadhayaasha iyo dadka taariikhda u dhuundaloola ayaa rumaysan in tirada dhabta ah ay kor u dhaaftay 200 oo qof oo isugu jira rag, dumar iyo carruur. Wuxuu ahaa nin maskaxdiisu aad u sarrayso laakiin sharku u weyn yahay, isagoo ku kaftamayay maxkamadda horteeda sidii isagoo aan waxba geysan, balse markii la tuso lafaha carruurtii uu si naxdinta leh u gowracay, wuxuu muujiyey kaliya qosol dhuumasho ah oo naxdin leh.
dadkii magaalada degganaa waxay u arkeen Holmes inuu yahay shaydaan bini'aadam u ekaysiiyey oo dunida u yimid inuu dadka laynayo. 7 bishii May sanadkii 1896 H. Holmes waxaa la geeyey goobtii daldalaadda si loogu fuliyo xukunkii dilka ahaa. Xataa xilligii dhimashadiisa uu hubaal u ahaa, wuxuu u muuqday nin deggan oo aan cabsanayn. Codsigiisii ugu dambeeyey wuxuu ahaa mid aad u yaab leh. Wuxuu codsaday in sanduuqa maydkiisa lagu shubo sibidh aad u culus oo dhagax ah si looga ilaaliyo in dadka lafaha xada ay jidkiisa qodaan oo ay u iibsadaan dugsiyada, waayo wuxuu aad uga baqayay in jidkiisa la mariyo wixii uu isagu dadka kale u geystay intii uu noolaa. Markii la daldalay, Holmes si dhaqso ah uma dhiman, balse wuxuu luqunta ku xidhnaa muddo 15 daqiiqo ah isagoo lulmaya ka hor intaan wadnihiisu istaagin. Muddo yar kadib dhimashadiisii, qalcaddii weynayd ee Chicago waxaa qabsaday dab weyn oo habeen badkii dhexda ka kacay, kaas oo gebi ahaanba dambas ka dhigay dhismihii naxdinta lahaa. Dad badan ayaa aaminsan in dabkaas ay ka dambeeyeen dad cadhaysan oo rabay inay tirtiraan sharka iyo habaarka meeshaas yaalay, si aan marnaba loo xasuusan dhiiggii iyo xanuunkii halkaas ku dhacay. H. Holmes wuxuu ku haray taariikhda dhabta ah inuu ahaa dilaagii ugu xumaa ee abid soo mara dalka Maraykanka iyo dunidaba.